dalkan jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Saleemaan Ciise Axmed Xagle Toosiye ayaa magaalada Hargeysa tababar ugu soo xidhay shaqaalaha caafimaadka ee gobolada Awdal iyo Maroodi Jeex. Tababarkan oo ka qaybgalayaasha u socday muddo 10 casho ah ayaa lagu baranayay nidaamka xog ururinta iyo gudbinta iyadoo la adeegsanayo aaladaha casriga ah ee kombiyuutarka. Dr. Saleemaan Ciise Axmed Xagle Toosiye oo munaasabadda gabagabada tababarkaasi ka hadlay ayaa waxa uu ballan qaaday inay wasaarad ahaan ka go'an tahay in la kobciyo isku xidhnaanta shaqaalaha wasaaradda ee dalka guud ahaan ku sugan lana kordhin doono helitaanka xogaha caafimaadka la xidhiidha. xafladan xidhitaanka ee loo samaynayo shaqaalaha ka kala yimid sagaalka MCH oo halkan ku baranayay sidii ay iyagoo isticmaalaya kombiyuutarro daatadii iyadoo hard copy la soo gudbin jiray imika ama iyadoo waraaqa la soo gudbin jiray imika ay kombiyuutarka iyagoo dul fadhiya soo diri karaan. waa horumar ballaaran oo weyn oo aynu qaadnay. waxaa lagaga maarmayaa warar badan oo lala soo habsaami lahaa. marka waa horumar wacan oo xagga tiknoolajiyadda wasaaraddu ay gaadhay. sagaalkan MCH ee imika tababarka la siiyey ee 10 casho qaatay waa tijaabo. waxaana qorshahaygu yahay inaanu dhammaan gaadhsiino meel kasta oo xarun caafimaad ah. wasiirka wasaaradda caafimaadka ee dalkan jamhuuriyadda Soomaaliland Dr. Saleemaan Ciise Axmed waxa uu kula dardaarmay shaqaalaha wasaaradda caafimaadka ee tababarka qaatay inay ku dadaalaan sidii